waxay noqotay wax kasta oo cabdi yiraahdo inaan fuliyo, wax kasta oo yiraahdo samee inaan sameeyo, wax kasta oo yiraahdo keen inaan dhiibo, inaan noqday qof sariir ku ururay oo aan xanuunsan oo dhakhtar jooga ama maxaan ku rahdaa kiniin qaadanayo kiniin ku socda oo maalin walba appointment leh. halkani waxaan rabaa inaan idinku soo gudbiyo cadaymihii u dambeeyay oo ay soo bandhigtay Safiyo Yunis, Safiyo Tusmo, taasi oo hadashay wax badan oo bulshada ay isla dhex marayeen, wax badanna ka jiray, wax badanna aan ka jirin. Safiyo hadal dheer bay mataqaanay hadashay ilaa 1 saac iyo bar ka badan bay mataqaanay hadlaysay, qodobo badan bay mataqaanay ka hadashay. Safiyo Tusmo kulli waa waxaan sugaynay in ay hadasho, maxaa yeelay in badan baan lahayn maadaama waxan ay isku og yihiin iyada iyo Cabdi Ciise. waxaa qurux badnaan lahaa, fiicnaan lahaa in mid ka mid ah in intuu Ilaahay ku dhaarto xaqiiqada jirta uu soo saaro. Safiyo maanta intay dhaaratay oo ay marag gashatay bulshada Soomaaliyeed waxay mataqaanay ka hadashay sida ay wax u jireen. waxay mataqaanay ka soo bilaawday, waxay tiri haddaan idin soo bilaabo sheekada bilowgeeda ilaa dhamaadka wax soo koobi kara maaha, balse waxa ay ka bilowday guurkii, waxayna xaqiijisay in iyada iyo Cabdi Ciise ay isqabeen. taana waa marag madoonto say sheegtay, waxay tiri aniga Cabdi Ciise waan isqabnay. haddana waxay noogu xijisay ay ka hadashay Safiyo qaabka iyada iyo Cabdi Ciise ay iskula jaan qaadeen iyo waxa sababay in waxyaabahan inay soo baxaan. waxay ka dhawaajisay in muddooyinka u dambeeyay ay ahayd qof xanuunsanayo in ay ahayd, waliba taasi oo ay sabab uga dhigtay in ay tiri Cabdi Ciise yaa mataqaanaa wuxuu ii sheegay in qof iyaga u dhow in uu sameeyo wax la yiraahdo madiido, taasi oo qofka haddii loo sameeyo uu wax kasta laga samaysan karo. hadda ka hor mar ii sheegay bay tiri. muddo kadib Cabdi Ciise aan waan sheekaysanay, waa isfahanay, habeen buu wuxuu yiri xogaa masiirkiisa aad u badnaa oo wuxuu u dhahaa inteed aaday yaa la hadashay wixii wax la mid ah. habeen buu wuxuu yiri waan dhaaranaynaa kaalay, waxaan ku dhaho ku dhaaro, anna waan ka yeelay, anna waan dhaartay, isna wuu dhaartay. waxaan ku dhaartay bay tiri marka gabadh markii hadlaysay in jaceylkiisa aan daacad ka ahay, in aan u tago meesha isaga uu joogo, inaan weli la noolaado, isagana sidaas kale ayuu dhaartay. iyadoo xaaladda halkaas ay marayso yaa waxay tiri aan doonayana in aan soo baxo xilliga ballantu ee markii la gaaray yaa waxaa bilowday coronavirus, dhaqaalihii waddanka hoos u dhacay. marka waxay tiri aniga dhaqaale aan kugu imaadana ma hayo, xilligana ma iman karo oo adduunka mataqaana uu kala xiran yahay, niyo bal xilli kale nooga dhig. waxay tiri inankii arrinta ayada zaaid uga xanaaqay, wuxuuna yiri haddii Ilaahay aad xushmaynin anna xushmayn maysid. waa hadalkii sida aan kasoo minguurinayno Safiyo, maadaama muuqaalkan si toos ah kulli aan usoo wada qaadan karin oo xuquuq dad leeyihiin uu yahay. marka uu xanaaqay dhowr beri iga maqnaa kadib ii soo noqday. markuu ii soo noqday waa markaa waxay tiri arrintan iyada ah aniga ay ugu bilaabanayso in wax kasta uu ii dhaho in aan yeelo. wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan wada hadalno, waan ka ogolaaday. wuxuu yiri aniga waan noqonayaa, kaarkii waan sii kansalayaa, maxaa inaan waddanka ku noqdo, soo qaata baasaboor Soomaali, kadibna Turki meelahaas aan tago waka lacag $5,000 ah ii soo raadi. waxay tiri marka horeba shuruudda waxaa ka mid ah in aanan haysan dhaqaalo, laakiin wuxuu ugu khasbay tiri ilaa lacagtaas keen ma haya markaan ilaa waan ka rabaa dayn soo qaado. lacag $2,500 marka aan hayay baan u diray bay tiri. muddo kadibna waxay tiri waxaan kuu soo dirayaa, ii soo dir buu yiri kuwa kale $2,500 kale. xaaladdu halkaas bay ka bilaabatay. intii ka dambeysay waxay ahayd waxaan ahaa qof aanan waxbaba kala ogeyn oo adduun iyo aakhiro meel uu joogo aan garanayn, wax kasta oo dhaca Cabdi Ciise sameynayo. waxyaabaha ay ka dhaaratayba waxa ka mid ah dad badan ba waxay ileeyihiin bay tiri way sinaysatay iyo wax la mid ah.
taasna waxay tahay xaasha ilaahay baan ka magan galay wax aan sameeyeyna ma ahan waxyaabaha isku dagaalnay cabdi ciise waxaa ka mid ahaa warseen kuugu imaadaa haddii waqtiga dhow yahay inagoona isqabin isagana uu yiri maya dhib ma lahane markaad timaado ayaynu ismehersanaynaa taasina waan ka diiday bay tiri halkaasi waxaa kaga cad in qorshe loo degay uu ahaa Safiyo laguna soo xirigelinay wayna sheegtay waxay tiri qorshe la igu talagalay leeso maleegay ayuu ahaa qorshahan isaga wali wiilka markaan sheekaysanay wuxuu dhihi jiray bay tiri haddii aad ii iman weydo ama aad i diito waan isdaldali waan isdiri intaan isdiro oo video iska duubo yaa ma taqaanay dhahay gabadhaas ma taqaanay ka dambeysay waxaas ayada marka iyadoo u tixgelinayso waxyaabahaasina xayrinayso iyo marka Safiyo ku khasbanaatay in cabdi ciise ay u timaado markay u timidna waxay tiri waxaan ahaa qof xabsi ku jiro xabsi kor ka furan qof ku jiro ayaan ahaa muuqaalku waa dheeraa wax badan oo qarsoonaana Safiyo way bidhaamisoo ka hadashay marka bulshada Soomaaliyeed ninba siibuu matqana u qaatay waliba laba group loo kala saftay hatta iyada lafteeda way sheegtay waxay tiri laba group yaa loo kala saftay dad xaqiiqada soo bandhigay iyo dad beenta iyo barbagandada xooga saaray iyo dad labada mid aan ahayn ka aamusay xalay u dambeysay waxaan daawanayno arkaynay muuqaal uu soo baahiyay kulli cabdi ciise xagiisa ka yimid saweekad kaasi oo dadka la tusay in Safiyo ay ahayd qof caadi ah waxa iska baashaaraysay hargeysa u tagtay damaashaad iyo dalxiis in ay ahayd iyadii iyo cabdi ciise aad u faraxsanaayeen ay ahayd laakiin si ogow qofka markii madiidada lagu sameeyo wax la mid ah qofka meel uu joogo ma uu garanayo only waxa uu qaadanaya awaamirta qofka asaga ah uu siiyo bas uu qaadanaya wax kale ma uu garanayo marka waxaan dareemi karnaa in arrintii Safiya Tusmo ee inta muddada ah la wadwaday ee ninba si uga hadlayay in maanta ay soo afjartay maxaa yeelay markii ay ka hadashay sida ay wax u jireen sida ay wax yihiin halkay wax marayeen iyo qodobadii ugu muhiimsanaa ee inta badan dadka la hadal hayay in maanta Safiyo ay u bidhaamisay dadkii una sheegtay xaqiiqadii jirtay iyo siday ahayd wax loo baahnaa in badanna la sugayay ayay ahayd marka kullay bal waan arki doonaa haddii isaga cabdi ciise arrintan iyada ah gabadha hadda ay soo bandhigtay haddii jawaab uu ka bixiyo haddii kale laakiin bulshada Soomaaliyeed waxay u soo gudbinaynaa xaqiiqadii jirtay in taasi ay ahayd